mudana artul anigu cadaalad baan doonayaa waxaan doonayaa cid aabbahay dishay inaan anigu gacanta ku dhigo mas-uuliyadda reerkoo idilna dusha ay iga saaran tahay dhankooda haddii aan aado maxaan ka oranayaa marwa ibligaad gacan ku dhiglaha gacanta ayaan ku soo dhigaynaa insha allah cadaaladana waan marsiin doonaa midda adiga reerkaaga ay soo hartay reerkaaga mas'uuliyaddooda adiga ayay ku saaran tahay dhibaatada yar ee ku soo gaartayna looma baahna inaad daciif u noqoto waxaan kaa rabaa iimaankaaga in aad sugto aad noqoto qof ad adag soo istaag marwa ibligaad soo kac maxaad la fadhidaa soo istaag mudana artugu maanta laga bilaabo waan ku aaminay balse aaminaadan iyaysan noqon midaan dib uga qoomameeyo wiilkayga waan ku waaninayaa khiyaanadu waa dembi dilku waa dembi been inaad sheegtidna waa dembi ilaahow yaanan gelin dhiigga bini'aadanka wiilkayga orod iska bax waanadaydana ha hilmaamin sidee wax u jiraan waxay u tageen jaare waxayna weydiiyeen arrimaha gunduus ilaa hadda waxba ma ogaan ayaga dukaanka jaare ayaad hal ciidan u diraysaa waa inuu kor ka ogaadaa gunduus iyo jaare waayo ma raba aniga artuur inuu helo wiilkiisa intaysan gacanta ku dhigin marwa ibligaad anaa aqaano artuur saan zaguud ugu saari lahaa مسلسلكني وحو قار ويهي مقدشو كيبل تي في ninka taglos lagu magacaabo muxuu sidaan muhiim uga noqday Dragos wuxuu rabaa magaalada Zaguud inuu la wareego Taglosna waa nin jaajus u ah Takfur warbixintaana waxaa noo soo gudbiyey holaadko qaan suugadinad aad ma taninayso waan aadayaa intay waxaasoo dhan dhicin waa inaan magaalada Zaguud gacanta ku dhigaa ugu horreyn waa inaan kuwan ka hadal siinaa ciday u shaqeeyaanna
aan ogaana ciidamadu way xanaaqsan yihiin waana xakameyn lahay waxayna kaxooyin arrinka dhacay